waxaanu wanaagsan daawadayaal idin ahaantiina halkaani waa warbaahinta Barawe qodobada maanta warkayna Barawe isugu doorka roon waxa kamid ah daawadayaal madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digtay in qaaradda Afrika ay noqon karto halka uu aad ugu faafo xanuunka fayraska. Ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Abdalla Hamdoun shaqada wuxuu ka eriyay madaxii caasimadda Khartoum kadib markii uu gaashaanka u daruuray amarka soo baxay dowladda dalka Suudaan. dowladda Mareykanka ayaa iyaduna naqatay dalka dadka ugu badan ay ugu dhinteen xanuunka COVID-19 ee dunida faraha baan ku haya. daawadayaal intaas iyo in kale Barawe News ku soo dhawaada warkayna faahfaahsan daawadayaal. waa maalnimo Jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay 17 bisha Abriil 2020. Aanan ku bilownay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa qaaradda Afrika ugu baaqay inay xanuunka ka hortagaan intii goor tahay. xanuunka Mareykanka COVID-19 ayaa qaaradda si sare u sii kacaya tirada dadka uu soo ridanayo, iyadoo hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayna ugu baaqday inay madaxda Afrikaanku ay wax ka qabtaan caabuqan. dadka la xaqiijiyo gaaraya guud ahaan tirada dadka uu ku dhacay qaaradda Afrika ayaa waxay gaarayaan 17,500 halka 1,000 qof ku dhawaad ay ugu geeriyootay Afrika qaaradda Midoobay Afrika caabuqa COVID-19. Ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan ayaa isaguna shaqada ka eriyay madaxii magaalada Khartoum kadib markii uu jebiyay amarka soo baxay dowladdaas oo ahay in xanuunkan caabuqa dartiis ay dadku isugu soo bixin meelaha. madaxa caasimadda Khartoum ayaa ka hor yimid dowladda amar ay soo saartay gaashaankan uu daruuray kadib dowladda wadankaas Suudaan ayaa cara kula dul dhacday ninkaas madaxa ka ahay caasimadda dalkaas Khartoum, iyadoo shaqadana laga eriyay ninkaas. dowladda ayaa tiri ninkaasu waa nin aad u xun wuxuuna rabaa inuu dadka baabi'iyo ama dadka oo xanuunkan caabuqa COVID-19 uu keeno dadku inuu ku dhaco. dalka Mareykanka ayaa kamid ah dalalka quwadaha adduunka, balse waxaa hadda caabuqan COVID-19 oo tira dad aad ugu badan ay ugu dhinteen, dad aad u badanna oo xanuunkan caabuqa COVID-19 uu soo ritay. doorashii hore madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ay sirdoonka Mareykanka bishii January u wadageen caabuqan inuu gudaha Mareykanka duu soo gaaro oo ka dhalan karto cawaaqib xumo xun. madaxweyne Trump ayaa ku adkaystay inay xanuunkan uu Mareykanka soo gaarin dalweynaha Mareykanka uu bad qabo. madaxweyne Trump ayaa siyaasiyiinta dimuqraadiga hadda waxay ku eedeynayaan inuu ka gaabiyay sirdoonkii Mareykanka digniinta ay siiyeen madaxweynaha iskana dhaga tiray, iyadoo xanuunkan markii ugu horeysay uu ka dilaacay dalka Shiinaha magaalada Wuhan, iyadoo dadka aad u badan ay ugu dhinteen magaaladaas, iyadoo ay ku soo waramayaan dowladda Shiinaha dad gaaraya 4,600 oo kaliya ay ugu dhinteen, halka Mareykanka 30 iyo something uu sii marayo. dalalka Mareykanka soo lameeyo waa Talyaaniga iyo Spain. Talyaaniga dad waxay gaarayaan 20,000 oo qof oo nafta ka jara caabuqan COVID-19 halka Spain ay gaarayaan 10,000 oo qof, iyadoo dalalkaas ay la daalaa dhacayaan maalmihii ugu dambeeyay caabuqan COVID-19. dowladahaas wadamadaas ayaa sheegaya inay aad ula tacaalayaan dadkana ay ku amreen inay guryaha ku sii nagaadaan si uuna caabuqoonsan u faafin. daawadayaal warkii Barawe News intaas ayuu ku egyahay. faafinta warka waa xaggiina, dhinaca farsamada waxaa noo fadhiya Engineer Saki, anigu Cabdiraxmaan warka ayaan idila socodsiinaya. sidaas iyo nabadiino daawadayaal.